waxaan maanta aan cadeeynaa amba aan ka hadlaynaa muddadii 2 sano ay soo socotay raadiyo balcad inuu soo tabinayay barnaamijka Hilow oo daadihiyo ka ahaa gaalos ahna IBN-ta Hirshabeelle anagana aan goobjoog ka nahay anigoo ah ugaas Maxamed Wali ugaas Xuseen kana tirsan IBN-ta Hirshabeelle qaasatan degmada balcad iyo Dictoresa Sumayo Ibrahim waxaan qiraynaa oo cadeeynaa inaan ka faa'iidnay waxyaabo badan ay ka mid yihiin dhanka isbedelka cimilada oo degmada balcad xul iyo laga jari jiray iyo geedaha roobkana uu ku yaraa maantana waxaan aad iyo aad aan ugu hambalyeeynaa in dhirtii jaritaankeedii ay ummadda iyo wacyigelintii ay anfacday ilaa tuulooyinka ilaa 35 kiiloomitir oo idaacadda ay baahinaysay oo warkeedana uu gaarayay waxaan kaloo ka faa'iidnay amba ay ka faa'iideen shacabka degmada balcad barnaamijka dib u heshiisiinta iyo ka hortagga colaadaha iyo dhibaatooyinka degmada balcad ka dhaco qaasatan beeraleyda iyo xoolaaleyda ayagana si weyn oo aad iyo aad ayay wax u fahmeen una garteen ayagoo dhibaatooyinka balcad ka yimaadiin xoolaaley iyo beeraley ay kow ka tahay teeda kale waxaa soo raacdo dhibaatooyinka ka yimaado qoyska ama familka xataa guriga isla joogo sida ninkii iyo naagtiisa iyagana xalinteeda iyo khilaafaadkeeda anagoo IBN-ta ka tirsan oo tababarkii iyo dadaalkii ay nagu bixisay hay'adda Bargof waxaan anagana aan ku sii celinay degmada balcad iyo nawaaxigeeda tuulooyinka 81 tuulo ay ka kooban tahay waxay dadka ka faa'iideen maanta ay dareemi karaan mirihii ay dhashay IBN-ta degmada balcad amba Hirshabeelle taasoo ah dadkii iyo beeraleydii iyo xoolaaleydii isqabqabsigoodii inuu yaraaday isku lici familka qoyskii degmada ka imaanaya ayadana ay si maanta oo nabad ah oo walaalnimo ah ay isku fahmayaan ayadoo ay saacideen tababaradii iyo dadaalkii ay hay'adda Bargof ay ku bixisay IBN-ta Hirshabeelle qaasatan degmada balcad aadaan ugu hambalyeeynaa tababarkaas anagoo weli aan ka dhargin macaanteeda aan jecelnahay in dib oo lagu sii balaariyo loo sii qabto maadaama tuulooyinkeena qaar ka mid ah hadda ay ka xoroobeen dhibaatooyinkii iyo colaadihii ka jiray qaasatan qoladii oo qawaariidka hadda ay ka xoroobeen qaarkood aan rabno in ayagana la gaarsiiyo waxaan kaloo u mahadcelinaynaa agaasimaha raadiyo balcad iyo garbihiisa wariyaasha oo degmada balcad miidiyaha oo si weyn oo aad iyo aad juhdi u geliyeen in barnaamijka Hilow oo saacado walba iyo xilli walba oo aad u baahan tahay amba oo ay u sameeyeen jadwal looga dhageysan karo barnaamijyada ka baxo deegaanka idaacadda ay gaarayso aad iyo aad aan ugu hambalyeeynaa waxaan kaloo aad iyo aad aan u saacideynaa amba aan u fahmay aan aad inaan nolol soo celiyo aan jecelnahay كلمة أو عملة لانك عملة أو آدي آد وضنك أو هذا نوع عصبتها هاي ببعتوين كذا أنا جانا شباب لحدان هاي وحاد ياد وعوينا لانك فتحات وبيدا روبيالي هذا أو سنة هذا عن كل جرنا لابد لا تاني أفرط أو روب كآد ياد ويلي هاي وضنك marka dhibaatooyinkaas oo ka hortaga cimilada intii yaro hadda aan soo qaadanay iyo tababarkeedii degmadu uu ku yaryahay qaasatan IBN-ta Bargof iyo intii ka qayb qaadatay waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad anagoo idinka mahadceliyayno in haddana la sii balaariyo oo isbedelka cimilada aad looga tabanayo in ayadana lagu soo celiyo waxaan anaga hadda si fiican u baranay oo aan u taakuleeynaa aan horan aan u ahayn laqan midda dib u heshiisiinta tii oo waxay noo saaciday habka oo wax la isku gudbin karo oo casriga groupiyo WhatsApp aan sameeysanay nidaamyadaas ay bartay IBN-ta ayadana wax weyn bay noo tartay anaga markeen horeba aan ahayn gudub dib u heshiisiin iyo laqan taas oo aad ugu mahadcelinaynaa waxaan kaloo jecelnahay oo aan codsigeen oo gabagabada u yahay degmada balcad in IBN-ta aysan ka maqnaanin ay dadaalkeedii ay ku wado ay ku soo celiso horan oo gudoomiyaha arrimaha bulshada uga codsada iyo maamulkaba taasaan taageeraynaa isbedelka cimilada aad oo noo saameeya inaad garab nagu siisaan iyo wacyigelinteeda taasaan iga codsanaa wabillahi tawfiiq